kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali weyn production kuna soo dhawaada barnaamijyadeedkeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hub iyo waliba ciidan ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo wajigaba xoogan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kana kulmay dalab uu hordhigay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali waxaan idiin soo gudbin doonaa kulankii ugu dambeeyay oo ay yeesheen iyo waxyaabihii laga diiwaan geliyay kadib wajigabixii uu ku soo dhamaaday kulankii is-aragga iyo ajandayaashii laga hadlay wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga heenaa magaalada Sababa qodobada kale oo aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya al-shabaab oo dib u qabsaday deegaanka Booco iyo wararkii ugu dambeeyay dagaal lagu hobtay oo ka dhacay Booco faahfaahin ayaan idinkaga heenaa waxyaabaha kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya shabaabkii ka firxaday duulaanka gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo gacanta lagu dhigay amiira la qabtay maleeshiyaadka oo ku goodinayo inay amiirada gooracayaan xaaladii ugu dambeeyay jiida hore ee dagaalka iyo wararka laga helayo ayaan idinku la wadaagi doonaa barnaamijyadeedkeena qodobada ayaan ku gorfeen doonaa hadduu rabiidmo ku soo dhawaada mar kale daawadayaal barnaamijyadeedkeena oo dhameystiran haddii aan ku bilaabo wararka naga soo gaaraya magaalada Sababa ee dalka Itoobiya halkaasi uu ka socanayo shirka u dhaxeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa waxa ka soo baxayo warar dheeraad ayaa laga helayaa wadahadal maalinkii labaad galay oo magaalada Sababa uga socdo madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali wadahadalka maalinta koowaad ee shalay ayaa ahaa intooda ugu badan isxoguraysi labada hogaamiye iyo waliba wanaajinta xiriirka labada dal oo mugdi galay wixii ka dambeeyay markii uu taladu u yimaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud Masarna heshiis la soo saxiixday balse maanta ayaa waxa la gudagalayaa arrimaha ugu culculus ee shirka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Ali Maxamed Cumar Ali Bacad oo kamid ah wafdiga madaxweynaha ku weelinayo safarka ayaa waxa uu sheegay in arrimaha ay Itoobiya kala hadlayaan ay qayb ka tahay sida ay hub iyo sanad ciidanba ugu deeqi lahayd ciidamada dawladda oo dagaalkaada kula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynuhu waxa ku baaqay dagaal shacabka oo ka jawaabay baaqiisa ayaa hubka qaatay hadda madaxweynuhu waxa uu dalka Itoobiya ka raadinayaa kaalmo dhanka dagaalka Itoobiya waxay ka mid tahay wadamada hubka sameeya ayuu u sheegay wasiir Bacad oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa hadalkiisa intaasi uu ku daray in dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka arisan doonaan sida ay isaga kaashan lahaayeen isaga oo meesha ka saaray wax madmadow ah oo soo kala dhaxgali kara hase yeeshee la ka madax banaan wasiirka ayaa waxa ay warinayaan in kulanka xogta laga helay maanta kulanka bilaabmay uu yahay mid markaasi walwal xoogan laga qabo in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali uu ku gacan saaro dalabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku aadan hubka iyo sanada ciidan iyada oo laga dharagsan yahay in dawladda Itoobiya ay dagaal ku jirto taasi oo su'aal weyn la gelinayo sida dawladda Itoobiya ay hub ay ku siinayso Soomaaliya iyadoo gobolku oo dagaalka Tigreega uu kaga furan yahay Itoobiya waayadii ugu dambeeyay waxa ka socday dagaal u dhaxeeyo Tigreega iyo dawladda dhexe Itoobiya kuwaasi oo si weyn ugu loolansanaa talada Itoobiya Abiy Ahmed ayaana raadinaya taageero garab shisheeye hasaatee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hubka weydiisatay Abiy Ahmed ayaa dadka ka falanqooda arrimaha amniga su'aal weyn ay gelinayaan sida Abiy uu hub u sii karo Soomaaliya inkastoo waayadii ugu dambeeyay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ay si wanaagsaneen dadka haddana qaarkood waxay warinayaan in Abiy Ahmed si cad uu ugu diiday hubkii ay dawladda federaalka ee Soomaaliya weydiisatay kaasi oo kamid ahaa ajandaha kulankii hore hase yeeshee mar kale lagu soo daray ajandaha kulanka kale ee maanta ay yeelanayaan si kastaba ha noqotee Abiy Ahmed ayaa isaguna waxa uu miisku soo saaray iyo shuruudo adag oo ay kamid tahay arinta Masar iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliyana wajigabax ay ku noqon doonto go'aanka Masar ay ka qaadanayso dawladda Masar ayaa u muuqatay in si weyn ay kaga caroonayso talaabada uu qaadayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo ku aadan soo dhawaashaha dawladda Itoobiya iyadoo warar kala duwan ay sheegayaan in dawladda Masar ay qarka u saaran tahay in xiriirka u jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya Abiy Ahmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn isugu soo dhawaanayo iyadoo muuqda isfaham muuqda oo laga gaarayo shirka inkastoo qodobada qaar ee ajandaha shirka ku jiro labaduba mugdi la gelinayo balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muujinaya tanaasul isaga oo ku adkeysanayo in uusan shirku fashilmin
geesta kaleetana shabaabkii ka farxaday duulaanka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa gacanta lagu dhigay. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo loo maleynayo inay ka soo carareen howlgallada ka socda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud isla markaasina lagu qabtay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yuusuf Raage ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in gacanta lagu dhigay shabaabkii ka farxaday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo waliba gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kuwaasi oo uu sheegay in ay isugu jiraan amiiro waxaana wararku ay sheegayaan in maxbuusleyda ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ay si weyn ugu farfakanayaan marka la eego dagaalamayaasha Al-Shabaab amiiradooda ee gacanta lagu dhigay. Taliyuhu waxa uu sheegay in lagu qabtay kontarool ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo ay shabaabku doonayeen inay ku dhuumaaleystaan gudaha gobolka Shabeellada Hoose oo Torotoro iyo aga kale oo ay maxkamada ay ku lahaayeen qaab dhuumaaleysi ah ay ugu yimaadaan. hase yeeshee taliyaha militariga Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qabashadoodu ay suura gelisay xog sirdoon ugu dambeyntiina shabaabkii ugu badnaa gacanta lagu dhigay. amiiradii ayaa haddana waxa wararku ay sheegayaan in ay gacanta maxbuusley u galaan laga baqdin qabo inkastoo hadda ay gacanta ku hayaan laamaha ammaanka gobolka Shabeellada Hoose sida taliyaha militariga uu sheegay. hase yeeshee waxa uu fafakanayo kooxda maxbuusley oo doonayso inay gooracdo si ay kaga argudato dhibaatooyinka ay Al-Shabaab u geysan jireen sanado. geesta kaleetana Al-Shabaab iyaguna guulo waaweyn ayay ka gaareen dagaalada soconayo iyaga oo gacanta ku dhigay deegaanka Booco oo horaan ay ciidamada dawladda kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku faafiyay inay dib u qabsadeen maanta deegaanka Booco ee gobolka Hiiraan oo toddobaadkii hore laga saaray iyadoo dagaal aanan ka dhicin ciidamada dawladda ay isaga baxeen. shabaabka ayaa waxay ku faaneen inay isku fidiyeen deegaanada Buulaburde iyo Beledweyne isku xira xilli maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. dadka warkooda lagu kalsoonaan karo ee gobolka Hiiraan ay ku sugan ayaa sheegayo in shabaab aanan badnayn ay gudaha u galeen aroornimadii hore ee saaka deegaanka Booco iyagoo sii maray dhinaca tuulada Samataro la yiraahdo oo ay ka taliyaan taasi oo ku taalo duleedka Booco. xogta la helay ayaa ku waramaysa in ciidamada dawladda iyo kuwa maxbuusley ay banaanka deegaanka Booco ku sugan yihiin ilaa iyo xalay kadib dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ay soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. habeen hore ayaa sidaan oo kale looga saaray Al-Shabaab deegaanka Buqa Qable balse shalay subaxii ayay dib ugu wareegeen waxaana la isweydiinayaa sababta dib u gurashada ciidamada huwanta ay u sameeyaan had iyo goraale. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan ayaa maanta waxa uu isaguna safar dhulka ku tagay Moqokori oo ka mid ah meelaha ay sanado badan Al-Shabaab ka talinayeen. Cali Jeete ayaa saraakiisha la socotay waxay kormeereen Moqokori oo 2 maalin ka hor ciidamada dawladda ay la wareegeen waxaana la sheegay in sanad militari ay gaarsiiyeen shacabka halkaas ku dhaqan si ay isaga difaacaan haddii Al-Shabaab isku dayaan inay dib u qabsadaan halkaasi. gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo ameeraya barnaamij wareedka aad kala socoteen warbaahinta Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.